saaka waxa lagu waabariistay damo askar military ah oo baarlamaanka iyo xarumo kale oo ay dawladdu leedahay la wareegay ciidanka ayaa markii dambe wadada halbowlaha magaalada Jigjiga lagu soo maray kadibna Cabdinuur waxa iska hor yimaadeen dadkii magaalada Jigjiga oo careysan burad iyo dhagax ay ku bilaabeen sidaas ayaana horta saaka wax u bilowdeen hadda xilligan aynu joogno waa habeenimo wararkii kale ee aynu helnay waqti yar ka hor in dadkii laamiyadii ay qaarkood weli sii taagan yihiin oo weli booqi jiro inkastoo ay muuqato in dadka qaarkii ay guryahoodii ay ku noqdeen sidii maanta ahaydna ay magaaladu ka degan tahay dareenkaas ayaa jira biyihii iyo laydkii waa soo noqdeen oo maanta la gooyey laakiin ilaa iminka wararka ugu dambeeyay ee aynu hayna waxay sheegayaan in internetka uu weli maqan yahay wararku Cabdinuur waxa kale oo ay sheegayaan in magaalada Jigjiga haddii aad dhex marto aad arkayso isbedelka weyn ee dhacay quraaradihii faantada iyo cabitaanka ayaa meel kasta daadsan tukaamadii iyo bakaaradii wixii yaalay galankii hore ayaa lagu kala tegay isla niskii dambaba lama soo gaarin alaabadii tukaamada iyo bakaaradii way albaabadii waa haawanayaan waxaa la sheegayaa in xaruntii sayidka lagu ururiyay dadka ka soo jeeda qoomiyadaha kale dad ayaa ku xeernaa oo qamaamay booliskuna ay ka hortaagnaayeen oo mararka qaarkood ay ku siganayeen dadkaas iyo boolisku inay iska hor yimaadaan waxaa la sheegayaa bangiyadii iyo goobo kale in ay ilaalinayaan oo ay laba askari u taagan yihiin ciidamada booliska ee loo yaqaano liyoga wararka kale ee iyaguna iminka soo baxaya ee aynu helayno waxaa ka mid ah inay timi diyaarad siday mas-uuliyiin ka socota dowladda dhexe ee Ethiopia madax ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayay kulmeen diyaaradaasi waa noqotay oo iminka way duushay wax ay ka wada hadleen Cabdinuur ilaa iminka lama shaacin oo lama oga dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Ethiopia waxa uu sheegay in ciidamadu ay isku dayeen inay ka hortagaan dibadbax ka dhici lahaa magaalada Jigjiga saaka kadibna uu mudaharaadkaasi weynaaday oo uu dhacay oo ay xakameyn kari waayeen taasina ay keentay dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburtay tirada dhimatay 10 inay ka badan yihiin ayaa la sheegayaa laakiin ma ay xaqiijin dowladda dhexe ee Ethiopia ilaa Cabdinuur